let your failures define you. waa inaanad u ogolaan guuldarrooyinkaagu inay ku sheegaan kaa tahay. waxaan wanaagsan asxaabta ku soo dhawaada YouTube-keena Alami Official. Some of the most successful people in the world are the ones who've had the most failures. wuxuu yidhi some of the most successful people in the world qaar ka mid ah dadyoga adduunka ugu guulaha badan are the ones waa kuwii who had the most failure waa kuwa guul darrada ugu badan leh ama say soo marto kale. J.K. Rowling, who wrote Harry Potter, her first Harry Potter book was rejected 12 times before it was finally published. J.K. Rowling ayuu tusaale u soo qaatay who wrote Harry Potter taasi oo qortay Harry Potter waa sheekadii caan baxday ee laga sameeyay filimkii saddexda caruur ku jirtay. Her first bookgeedii ugu horeeyay was rejected waa la diiday 12 times 12 jeer before kahor it was finally published kahor intaan ugu dambeyn la soo bandhigin ama la soo baahin buugga. Michael Jordan was cut from his high school basketball team. Michael Jordan ayuu tusaale haddana u soo qaatay waa nin kubadda ciyaaree was cut from his high school basketball team wuxuu ahaa mid jira kooxdiisii basketballka ee dugsiga sare. He lost hundreds of games and missed thousands of shots during his career. He lost buu yidhi wuxuu khasaaray hundreds of games boqolaal ciyaarood and missed thousands of shoots wuxuuna la waayey kumanaan shoot during intii lagu guda jiray his career khibradiisa ama waayihiisa ciyaareed. But he once said, I have failed over and over and over again in my life, and that's why I succeed. But one side, laakiin mar waxa uu yidhi waa ninkii Michael, I have failed waan fashilmay over and over and over again in my life. noloshayda dhowr jeer waan fashilmay. Over macnaheedu waxa weeye waa mar kale iyo mar kale iyo mar kale ay over and over laga wadaa in my life, and that's why I succeed. taasna waa sababta inuu guulaystay. These people succeeded because they understood. wuxuu yidhi these people dadkanu succeed way guulaysteen because maxaa yeelay they understood that taas ayay fahmeen That you can't let your failures define you. You have to let your failures teach you. wuxuu yidhi you can't let your failures define you waa inaanad u ogolaan guuldarrooyinkaagu inay ku sheegaan kaa tahay ku qeexaan. You have to let your failures waa inaad u ogolaataa guuldarrooyinkaaga to teach you inay wax ku baraan. You have to let them show you what to do differently the next time. You have to let them waa inaad u ogolaataa guuldarrooyinkaaga to show you inay ku tusaan what to do waxaad samayn lahayd differently next time marka ku xigta wax ka duwan sidii aad u samayn lahayd wixii hore waa inay ku tusaan guuldarrooyinkaagu.